قلب كأكو شقيني سما هيستا كبعدنا وحن ورثني maamulka gobolka iyo dadweynaha inuu hay'adaasi ay bulshada wax u qabatay in kale waxaan la kulmaynay xafiisyo badan ama isku duwayaal badan oo aan xafiis lahayn oo aan qalab lahayn sida daraadeed waxaanu ka soo qornay qoraallo aan ku cadeynayno inaan xafiiskaasi u shaqaynin waxaan dhageysanay خلافات كتير شري حق دولارك إيه وحساس وكلا إيه وأنا نحن صارني معاملك جوال كي يدق ماذا إلي يدق وحاليا لرنتاز شنو كله واحد جدّو فرن 8 كيلومتر كم ده وضل إسكوح التجلدو بيو قال كعيو أو 8 كم ده لما يستري كل هرانا مركي لفرها لبلابي يدولدو تقطي هذا أنا فرصة كاس أو إسكا كاشدين دولة يدوينهم 8 كم ده أو لفري أيضا يا جدّو صفري قيبتي فيسكي كواد جدّو صار لما خلاف كتير دقمة بورتيلا أو قلها ديجان كدقمة ومدة وكتير خلاف شقدي حتى الدولة أو قدرت دوينها وقبل هاي الرجال جدّو تاسنا وسوحلي ودهان بال يبركاس أي جدّو يقوم مقنعين قبل كمودو يدو قيبة كم إذا مدحوينه ولا تشوفي قيبتي كان حضنها ككوبا وزارة ورفافنتي إسكاسينتا وزارة أرمها جودها وزارة هولها جود يو حلدبان حسين سعيد حسين ودرن وقبل كان لقصو دورتي حلدبان أول من نبضون كاها ديجان كاها أفرتها حنود وحي مدة مشكور صناعين أنت الدبوم دحين كزوتري سيدي لو حلين لها وحلا لو وحي هولا هاوز الدولة أرمها جودها وكشري وفتية سيدي لو حلين لها أما هم نقطة خلافات تشتري أما هم أو كونسلا سامشيل إنه سيد تبرت اللوكلة أما هم نقطة ميلا عن كونسل كراين عن كونسل أوردسو ويساد السعودان هدي عن قلت ديجان عن دق ملاحين ددوينها أنا ومشقين كرتو ومعملكو لسولنا من الكريو ما هو وكيل ددوينها سيدو كله هيئتها ديق بحيانة ما أقبليان ميل عن قلت ديجان يلو دولة تاكد دوليسو وحالة السيد دمان القلياش الديجان كسان هوريسو شيرني يلو برشد أي صوح لطيانا وانا نحولن كدبنا waxay iska doorteen gudoomiye ku xigeenkii iyagoo kriteeriyadooda aqoontoodii wax la eegayo waxaan isleenahay safarkaas wuxuu ahaa safar wax qalada waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay ogolaado in dhammaan gobolada Puntland 9 gobolba wafti aadi doono waftigaas طبعا inta yadani maadaama xagga soo qabanay wasaaradihiina ay hadda baahin oo qabaan gudiye kale insha Allah madaxweynuhu ku magacaabi doona waan rajaynaynaa gobolada kale waayo waxaan dareemaynaa markaan ka soo tageynay gobolka Mudug isbedel la taaban karo oo gobolku kaga duwan yahay markii aanu tagnay iyo markaan ka soo tagnay ayuu sheekha waxaan idin sheegayaa inaan hawsha uu wasiirku idin sheegay inaan soo qabanay waxa ugu badnayd in councilada laga soo dhiso policy-ga dawladda ama wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay ahayd in 6 bilood oo ugu horeeya in gobolada degmooyinka intooda badan laga sameeyo maamul oo dimuqraadiyeyshankii iyo maxay ay maamul baahintii ay dawladdu balan qaaday aanu gaarsiino marka inta gobolkaas degmooyinkiisa oo dhan oo awal adkaan jiray ilaahay waa loo khafiifiyay waxaan ugu mahadnaqaynaa deegaankaas waanu soo dhamaynay si fiican oo guulan waanu soo dhamaynay kuwa kale dhiman wixii aan lahayn waxaan doonaynaa inaan dhamaystiro sanadkan haddii alla yiri intaasaan anigu oo wasaaradda shaqadeediya ayaan ku kabayay wasiirka inta ka dambaysa oo balbalaarana sheekhaygii aan idin sheegay ayaan u dhiibayaa isaga deeqsiin doona wasiir intaadan ka bixin maadaama aad wasiirka arrimaha gudaha marka laga hadlayo konsolada la dhisay ama golayaasha deegaanka meelaha ugu dhibka badan waxay ahaayeen
degmooyinka Galdogob iyo Xarfo dadka qaar waxay sheegayaan inaysan ku qanacsanayn guud ahaan dadka deegaanka wada deegaan habka u maamusheen marka arrimahaas maxaad ku xalisay waa su'aal wanaagsan weeye waa dib u waafajinta wax xubnaha la qaybsanayo waad garan kartaa dadka marka deegaanka ma wada deeqaan waxaa laga yaabaa in gunac waa jiri kartaa laakiin way shaqaynayaan waana dhisan yihiin wax buuqoo ka taagan hadda ma jiro wuu shaqaynayaa deegaan golihii councilkii deegaankaas labadaba wuu shaqaynayaa way jirtay xoogaa markii hore dhif ka jiro nagala kulmay oo intaasaanu leenahay intaa malahin iyo way nagu yartahay iyo xisaabtan baa dee jiraya laakiin waa qancinay waana isla garanay markii dambe Xarfo oo kale ma jirtaa in gudoomiyahana ay doorteen golaha deegaanka gudoomiye ku-xigeenkana la magacaabay maya yaa warkaas war khaladaad weeye gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenkaba waxaa doortay golaha deegaanka saddex bilood inaad iska qaybgelin ma jirtaa oo beelaha degan deegaankaas waa iskaga baxay maya waad soo eegi doontaa waad tegi kartaan waa u dhantahay saddexdii xubnoodna reerka ayaa markii hore waxyaabahan isu celcelinay way aqbaleen waa waxaa rabaa inaan ku weydiiyo su-aal shaqaan ka xamsan TV-ga dowladda inta badan gobolsamada la dhisay ama golihii deegaanka dad dhalinyaro aqoon-yahano ayaa ku jiray ka wasaarad ahaan maxaad aaminsantahay inay kusoo kordhin karaan horumarka gobolka inay arkaan mariyaan waa isbedel baahdo waa maamulkii isbedelka dhalinyaradaana markan waa in dadkii hore ay nastaan in badan bay soo jiitamayeen marka waxaan isleenahay waa duuli doonaa maamulada aanu soo dhisnay cabdishakuur cabdullaahi Royal TV haddii gobolka mudug aad soo dhisteen golihii deegaan waxaa jira degmooyin kale oo Puntland ku yaala qorshaha wasaaradda arrimaha gudaha xagee noqonaysa meesha labaad ee ku xigtay golaha deegaan loo dhisi doono waad heli doontaan waxa weeye waanu mar basar baa la gooyaa baa yidhi halkaasaanu soo dhamaystiray kuwayo way jiraan oo way leeyihiin wixii aan kuwii aan lahayn priority say u kala leeyihiin baanu waxaa jirtay wasiir sida sheegteen in isbaarooyin badan qaadeen oo shaqadiina ay qayb ka ahayd isbaarooyin wafdigiina ciidamada ama kooxaha isbaarooyinkaas markii hore dhigtay dad badan oo siyaabo kala badan looga faa'iideysan kara ayaa ku jiray marka see loo beeqaamiyo dadkaas oo kale qaab noocee loo sameeyay ma la xirxiray maxaa loo sameeyay dibcil dhaqan cilmi baa loo sameeyay see loo sameeyay dawladda qorshe noocee ka yeeltay waanu ciidamaynay shaqooyin baanu kala geegeynay annagoo si aanu raalli ku kala nahay baanu meesha ku banay saacad wasiir laakiin maalintii ugu dambeysay markii madaxweynaha Puntland uu safarkii uu ka yimi waxaa la sheegay isbaarada in dib loogu ceshay gudoomiyaha gobolka aan wareysanay arrintaas waa noo xaqiijiyay marka saas ku waafaqaysa isbaarooyinka waa qamid gudoomiyaha gobolka waxa uu sheegay in isbaarooyinka batayaan ka yaab oo baabuurtan maxaa la dhaxkana waxaan kuwa meelaha marmara warso ay ka yimaadaan هذا أنا لوكال صاحي. وعي هل مالين أو سيدا قدومي وشيء أيا وحنا وصل نقضي مال كم ده إسلام مركينا عيدا بقصوب حي وحنا نقطي كل طبعا وحي عين وحقه وضج لي أو سيدا ورد وشيء وزيركو عيد دمان إسباروين كقول هرب تشوجي وحي عين كون مدبرن تشوجي kuwa gidigood soo sheegay waa qarameyay ciidan bay noqdeen waxay geereen buuraha iyo qaar loo diray ee difaaca dalka ka qayb galeen qolada marka dambe aan maqasheen waxay noqotay qolo uu soo gashay laakiin markii la soo aado ciidanku soo aaday aan ku soo gaarin saadaradeed ma jiraan hal isbaara oo gobolka mudug hadda taala oo inta oo sharci darra sidoo kalena ma jirto degmooyinka aan soo dhisnay mid hadda khilaaf ka taagan yahay ama ragaad ka jiro dhammaan maamulkii gudoomiyihii ku-xigeenkii iyo xogayihii waa wada shaqeeya wasiir soo dhaqaale laakiin soo ma dhici karto in qof walba oo shaqo doon isbaaro dhigta si dawladda looga shaqaaleysiyo ama ciidamada difaaca loogu diro ciidanka horta isbaarooyinka horey u jiray waxay ahaayeen intooda badan waxay ahaayeen ciidamo awal dawladda ka tirsanaan jiray oo wuxuun ama qaarkood tabashaa ama qaar shaqo laga joojiyey ama qaar wuxuun saasay ahaayeen ما هين إن نقابل المرينا ينتو وضجلي إن لو حيو واحد هو هري إذا ما ضوجت السنة أو حنت مشاكل يجينا يضم دجال كد عمبانو مالين الكود قارنك رمان طولنا يشقوي كده قصده سادراد خلاصة القول متشران محل ده إسباروين كتشري ديجانك منتشران تنشن حتى لقى بقى يعني صنطلان. بدو بيساعد تسير على بناء سؤال كويس وقصة سنة ما عندنا
دولته سنة كان 2014 كبلوغ سو حكى هذا شو صوب اللي تحققت الدولة ويكون أدنى حسنين تأمل يباهي سواء إذا ماذا لا بس برمت كان قبل كمودك حاجة حرام واحد بموي كيكون قلا ياسر واحد كده عيدن كبرمتكو هو عيدن كي أول قبل كقرنا أو كوكلا قرنا دموين يتولين كوكلا تاتسنا يجب توابر قارنا للسيء لنا قلبي waxay ka howlgelayaan dhammaan gobolka mudug degmooyin tuulooyin xuduud xarunta weyn iyadoo baahida aad u jirtay oo amni darrada deegaanka gobolka ka jirtay ayay xalinayaan xaruntooda halkaas noqonaysaa waxay noqonaysaa magaalada Gaalkacyo waxayna ka howlgelayaan dhammaan gobolka mudug